assalaamu calaykum waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waqtiga waxa uu gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii ja iyo sha oo aynu ka soo gaabinay juxa xigmad iyo sheeko xubintan waxaad mar kasta ka daawataan kanaalka shaam show waxaana idinla socodsiiya anigoo ah cabdulbaasid xasan nuur shaam ku soo dhowaada qaybtii toddobaad. qaybta toddobaad waxaynu ku soo qaadan doonaa xigmado cajiib ah. mararka qaar waad guulaysanaysaa, mararka qaarna waxbaad baranaysaa. labadaba ma aadan guuldaraysan. mar waad guulaysatay, marna waxbaad baratay. noloshu waa imtixaanka ugu adag oo dadku ay galaan. dad badan way ku fashilmaan sababtoo ah waxay isku dayaan inay koobiyeyaan waxa ay dadka kala samaynayaan, laakiin ma ogo in qof walba uu leeyahay arrin gooni u ah. ka taxadir qofka aad aaminaysid, maxaa yeelay shaydaanku mar buu ahay malag. ha u ogolaanin inay dadka kugula dhaqmaan sida sigaarka oo kale. markay rabaan ayay isticmaalaan, markay ka dhammaystaanna way iska tuuraan. ha iloobin 3 qof noloshaada oo idil: qofkii ku caawiyey xilligii aad ku sugnayd wakhtigaad kaa, qofkii kaa tegey xilligii aad ku sugnayd wakhtigaad kaay, iyo weliba qofkii sababay inaad wakhtigaas adag aad gasho. halkaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa qaybtii toddobaad ee xubinteeni jaca Aisha. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan like saar, sidoo kale tood ha iloobin inaad rukumato janaalkeena adigoo taabanaya calaamada guduudan ee subscribe-ka, sidoo kale toodna furanaya badhanka gambaleelka si muuqaal walbaan soo gelin lagu wargeliyo. waa cabdulbaasid xasan nuur oo idin leh u arrimaysid wanaagga ka haro. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.